عقاشة ويلك وحقرتك iyo dhalinyarada qaar kamida beelaha degmada Ceelaf Weyn ee galbeedka gobolka Sanaag oo maanta kula hadlay warfidiyeenada gudaha magaalada Ceelaf Weyn ayaa waxay taageereen gogashii shirka beelaha habar jeclo bari ee ay dhigeen beesha Cabdiraxmaan Muuse laguna qabanayay deegaanka Maax ee waqooyiga gobolka Sanaag sidoo kale waxay baaq u dileen dhammaan beelaha habar jeclo bari baaqaas oo ahaa inay ka soo qayb galaan shirkaas la cilaamiyay iyagoo amuurahaas ka hadlayna waxay yiraahdeen xafladda waxaan ugu qabanaynaa taageerada shirka maaxeed ee Cabdiraxmaan ku dhawaaqay beesha Cabdiraxmaan ku dhawaaqday waana ajiibnay waana taageereynaa dhigo iyo tamarra waa u yeelanayna waa ku maatantiin annana waanu taageersanahay waana imanayn shirkii beesha Cabdiraxmaan ee ku taariikhaysnaa bisha 11aad madashuna ahayd ma shirkaas oo loogu ay gogasha u dhigeen beelaha habar jeclo bari waanu ajiibnay gogasha aad iyo aadna way ugu mahadsan yihiin shirkuna waa ka dhinaa meesh wuu ka dhinaa iyaga Ilaahay soo dhaxmariyay annana haddaan nahay beelaha habar jeclo ay madasha iyo shirka u qabteen waanu ajiibnay ay gogasha dhigeen Cabdiraxmaan ka dhacay maax inaanu ka celino jawaab celin waanu taageernay oo inaanu ka qayb galno oo ajiibno iyo yeelista ay noo yeedheen ee gogasha ay dhigeen idinkana way idinka mahad celinayna waanu idin ajiibnay waanu ka soo qayb galinaa insha Allah halka aniga Daahir Lunkaal Cabdiya madax laqameedka degmada Ceelaf Weyn shirka qolada Cabdiraxmaan ku baaqday waa hambalyeynayna shirka waa ka soo qayb galayna mar qurana ma taageersan maax ka dhacaya ee qolada Cabdiraxmaan gogasha qabatay waxaanu taageereynaa kun jeer baanu taageereynaa waa ka soo qayb galayna anagoo ka tirsan golaha deegaanka degmada Ceelaf Weyn magacayguna yahay xildhibaan Khadar Xuseen Cabdullaahi waxaanu halkan ka taageereynaa shirka ay beesha Cabdiraxmaan u qabatay habar jeclo bari ay ku maax gogasha maax dhigtay waanu taageersanahay waana ayidsanahay waana ku imanaynaa xilliga ay sheegeen halkaan ku hadlaynaa waa Ceelaf Weyn anagoo magacaygu yahay Axmed Saxaaq oo jaamac kana mida xildhibaanada golaha deegaanka degmada Ceelaf Weyn waxaanu halkan baaq soo dhaweyn uga jeedinaynaa shirka Cabdiraxmaan way ku qabtay ee uu ku baaqay ee uu gogasha ku dhigay habar jeclo bari maax aad baan u soo dhaweynaynaa aad baan u taageersanahay xilliga ay qabteen iyo xilliga ay gogasha dhigaana waa soo dhaweynaa waana ku imanaynaa waxaan soo dhaweynaa shirka Cabdiraxmaan Muuse ay qabteen ee ku dhawaaqay muddada ay u sameeyeen ee ay sheegeen inay gogasha dhigeen meesha la maax haddaan nahay wixii ka sokeeyay degmada Cergaabo galbeedka waan raacsanahay waan soo dhaweynaa waan ku imanaynaa insha Allah taala waxaan halkan aad uga hambalyeynaa shirka ay ku baaqeen beesha Cabdiraxmaan lagu qabanayo maax shirkaas oo ay isugu iman doonaan beelaha habar jeclo bari aad baan u taageereynaa waana ka soo qayb galnaa sida ahayd waqtiga la qabtayna waanu ka soo qayb galnaa waxaanu si ballaaran u taageereynaa shirka ay gogasha dhigeen beesha Cabdiraxmaan ay ugu baaqeen beelaha habar jeclo bari aad iyo aad baanu taageersanahay shirka aad iyo aad baanu ugu hambalyeynaa waa imanaynaa waa taageersanahay beesha Cabdiraxmaan gogasha noo dhigtayna aad iyo aad baanu ugu mahad celinaynaa taageersanahay shirka habar jeclo bari waana ajiibnay waana ka soo qayb galaynaa Axmed Mursal Askar Star TV Ceelaf Weyn